بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ليال أدني سلام يا دمانتين إن شاء الله سودوا إن شاء الله فعليا أنا بدأ الصومالية وارنتها يعني علي والله عنوان في عندك سوقات. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام يوسف. آد سودو هذا. سارس يا دول لا تنقص سلام. قولي قونيمو شرف يا كرام سمبرلايس وعليكم السلام ورحمة الله أبوان كيغا قارقة أدن كو سلام سلام سرى سيدوك الولا سلام سرى دمانتي وحبا عاور ريبان ماينو ميل كستا او صومالي وحلقا يالنا ميل كستا او صومالي وحلقا يالنا او صومالي كليلو سواديك سنة وانو شيقينا wax aan reebanayaa ma jirto aniga maaha kaligay maaha waa ummad Soomaaliyeed oo dhan oo social media ku jirta ayaan waxba hanbaysanaynin waxaanu sheegaynaa Soomaaliya sida loo dhaawaco cid loo soo adeegsado waxaynu naqaanay Umar Cabdirashiid iyo Imaaraad baa lacag laga soo siiyay maya kuwa ka sii xuno gudaha ku jira oo magaca Soomaaliyeed sheegta oo kula haysta magaca arka insha Allah binillahi alkarim waxaan rabaa inaan ummadda Soomaaliyeed aan u iftiimino halkeeba horta la naga soo galay meelaha la naga soo galay aynu run ka sheegno Abdi Hakiin wadaadid waan ku salaamo walaal meelaha la naga soo galay aynu runta ka sheegno waxbayaan indhaha la marmarin noo dabeetna walaal waan ku salaamay Muusas waxbayaan hadalka waa laga warwareegaa qofku wuxuu ka baqanayaa in la yiraahdo ma qabiil hebel baad weerartay mise reer hebel baad weerartay laakiin reer hebelada la isu geeyay kayga iyo reer hebelka reerka kale iyo reer hebelka reerka kale waxa iga dana aynu isla fahanna Soomaaliya waxa iga dana Soomaalinimo bis haday aniga qabiilkaan ka dhashay iga xanaaqaan oo Soomaali kale oo gashay alxamdulillah rabbil alamin laakiin ayagu khaldan yihiin oo munaafiqiin yihiin haday iyagu khaldan yihiin oo munaafiqiin tooda waan sheegaya haduu reebtiga khaldan yihiin waan sheegaya haday Allahumma salli ala Muhammad dadka jubada hoose ku noolay dad ka mid khalad sameeyaan waan sheegayaa qofka haygu jeclaysanin inaan maalin amaano gobolkaaga inaan maalin siyaasiga aad u taqaano siyaasi aan amaano waxba haygu jeclaysanin waayo de baraan galaya hadana bari ayaan gelayaa oo dantu itusaysaa oo oranaya adeer halka khalad baa ku jira reer hebel halka inay hebel oo gobolka u dhashay uu khaldan yahay marka giraant horta meel walba hamartay waxaan rabaa horta inaan la wadaago social media-han ragba iyo dumar baa ka buuxa social media oo kulligood awada taqaanaan Soomaaliyeed dadana kubad baa la ciyaaray koobkii nacasnimada koobkii doqoniimada nin la yiraahdo Naasir Cadaad ba qaaday ama walaal ha sheegto ama aayad quraan ha akhriyo waa koobkii doqoniimada ee social media meel la hawga kaxayna
doqonka social media waa kuma nacadka social media waa kuma waa naasir cadceed qof iga kaxaynaya kelmadda ma jirto nacaska social media waa naasir cadceed waliba markhaatiyaan u haystaa ummadda Soomaaliyeed halka social media ku jirto oo dhan baa iga markhaatiya nacaska Facebook social media waa naasir cadceed inta markhaati haystaan ku sheegaya idin sheegaya dhammaan fiidiyoodiisii dib u eega gabadh buu guursaday waa la guursadaa gabadh sharaf iyo karaamo ilaahay isku khayro awlaad xalaal ahayd kala siiyo taam yeen diidanay waa maya muxuu ku darsaday inuu bilaabo jamhuuriyadda barakaysan اللهم صل على محمد إنه بلابو إن وحوي إن دم عصر فيديو هرولها أيو أنتو ساقة تيبول بلدك بيهود كل شيء جاي مكانه وتجي إلا حلا حق بهاي أوكي هل كي هذا نو صار دافع إما كوي حمريا حدودهم بين تيا صومالي دو أيسكو هايستو حد صومالي لا يرى أنو ما قنصني صومالي حدود حي ما قنصني تيجي حد يجمع حيجو قاري حد يجمع حيجو وبين وحاسي تيبو دبا تنا إمك سوي يرب الدلي مركز سوري بدلان باقر ترانو حد بيكسو حد بيوتي وياهي تانا قاطعي با بل نعسك سوشيال ميديا هو ضغن كفوس سوشيال ميديا وداد بانا ديها هين آيات قرآن رخنين ساو كذاب بينالات هاي تاسو صومالي بمخاتيقا انتو وحي بصور دافع ايو إنان حيران هدو حتا دوالون عمليا دادك هدو حتا عيدونا عملين ايو مامولكا موصبيحونا عملين ايو إنان حيران محاد كغسي تيغالي قف دمرا او حبسي ku jirta hadaan halka soo fadhiistaan iraahdo waxa weeyeen xaq baa lagu xiray jamhuuriyadda barakaysan xaq bay ku xidhay aad iyo aad absalaam salaam sare marka nacaska social media inta la wareegay ayaa koobkii doqoniimada in la naasir cad loo dhiibay waa koobkii nacasnimada koobkii nacasnimada ee social media qof kasto ka hadla qof kasto wax sheega nacasnimadii inta la soo ururiyay baa nin lagu soo ururiyay marka u dhutin mayso inantan xidhani naciimi u dhutin mayso nin nacaso soo hadlay inta kale odayba halka waan idinka qoslinayay odayba markii maxamed cabdilaahi farmaajo la doortay arfeen arais aad baan ku salaamay walaal markii maxamed cabdilaahi farmaajo la doortay ayaa oday salla cali la yiraahdo baarlamaanka Soomaaliland ku jira ayaa wuxuu halka la soo istaagay wuxuu waa taa bilika tiri xamar bilig hadaba hargeysa imika bilika tiri hargeysa ayay bilika tiri waa taa xamar bilika tiri ma maqasheen hargeysa ayay bilika tiri odayga salla cali la yiraahdo baarlamaanka Soomaaliland ku jira hargeysa waxay bilig uga tiri dadka hargeysa ku nool waxay dareemeen cadaalad xumo eg marka hore marka la isu geegeysto in yaroo beena eg wax allaale waxa la wado dhami waa in yaro waa inagoo reera ayaynu dawlad noqonaynaa dabeetana reer dawlad ma noqdo dabeetana haaf reer bay yiraahdeen reerkii bay laba ka kala dhigeen oo xidhadeen waa half and half bal ummadda loo sheegaya wax la leeyahay jamhuuriyadda barakaysan maxaad wax uga sheegtay half and half bay maraysaa imika aan jacayn aad baan ku salaamay aqoon-yahanaan jacayn marka imika waxay maraysaa half and half waa dhinac iyo dhinac way soo socotay annagu inta xaqa u hadashaa halka
waanu la soconaa dhaqdhaqaaqa iyo waxyaalaha la samaynayo wax allaale waxay samaynayaan allahumma salli ala maxamed reer muuse shaani iyo jeegaanland waxay samaynayaan dhaqdhaqaaqooda waan la soconaa waxaan idiin sheegayaa waxay arkayseen suldaankii guud ee beelaha isaaq ma aha suldaanka guud ee gobollada waqooyi ma aha suldaanka guud ee suldaan maxamed suldaan cabdiqaadir suldaan cabdilaahi ayaa hadlay okay markuu hadlay qoladan jeegaantu laba awoodood bay isticmaalaan labada awoodood ay isticmaalaan waxa weeye mid waa xabad oo waa dagaal iyo xarig iyo tan ay nicimo ku haystaan quwadda labaad ay isticmaalaanna waa lacag laaluush waa laba quwadood oo isgarab socdaa waxa weeye laaluush baan bixiyaa ama lacag baan ama allahumma salli ala ama xabad baan ridaa oo inama yarro mudaharaadeen xabad la dhacaa okay tii laaluushka ayaa soo gaadhay suldaan maxamed waanu la soconaa habka loo siiyey ayaanu ognahay dabeetana isagiibaa isbedelay raaligelin baabuu ka bixiyay hadalku yidhi suldaanku aniga qof moodaya inaan facebook ka hadlayo suldaan maxamed suldaan cabdiqaadir aniga waa saaxiibkayo ibraahina waanu wada fadhiisan jirnay waanu majaalisi jirnay wax allahumma salli ala maxamed aqoon aanan u lahayn baan u leeyahay cid kastana waan ka xigaa isna wuu jecel yahay waan jecelay laakiin lacagtaa waa la bixiyey sida loo siiyey meelaha lagu siiyey allahumma salli ala maxamed harwanaag baa loogu keenay waa hudheel biriishka hargeysa hoostiisa dahabshiil gargaar baa laga soo qaaday xaggaana waana loo ka shaqeeyaa hoosta hoose hargeysana waana loo ka shaqeeyaa isla markiibuu dowladdii jeegaanta taageeray shirkii garxajisna uu ka soo horjeestay ilay waa ummad nool qabiilka garxaj la waa ummad ku nool gobolladan la sheeganayo marka qabiilkaa yidhi waanu shiraynaa buu automatically isu bedelay inantii maanta hadlaysay ee aan soo sheergareeyey waxaa la yidhaahdaa hodan muuse cali faruur waan soo qofka u baahanow waad ka arki kartaa facebookeygaad ka arki kartaa barteedaad ka arki kartaa hoos baad u baaraysaa waad arkaysaa dabeedna ina muuse cali faruur maxay ka hadashay wallaahi waa geesiyad haliyeyada ilaahay baygu waxay ka hadashay wax waaqiciya oo jiroon layska indhatiraynin hargeysa xaafadday kaga nooshay dadka aan ila fahmaynow af soomaaligaygow waar iska taga uma baahni xitaa inay dhegaysataan wallaahi waayo dadka ila fahmaya ayaan rabaa inaan wax u sheego inantu xaafad bay ku nooshay waxay tidhi xaafadayada qof wasaarad somaliland u shaqeeyaa ma jirto meel wasaaradi ku taalla ma garanayo allahumma somaliland baa tani weligeyba waa laygu haystay weligeyba waxa laygu haystay somaliland baa tani weligey waxa laygu haystay somaliland baa tahay aamusnow somaliland baa tahay marka waxyaalaha la yaabanahay waxaa ka mid waar hargeysa imika bilig ka tidhi bilig dadku la caburi waar waxaan idiin sheegayaa kaa yareena soo caayayee la idhaha janoogo aawad ayaa loo soo daayey halkaa wax kacay baa layidhi wallaahi inta la soo daayey baa layidhi halkaa wax kacay dabeetana wixii kala garan maayo isaaq kala garan maayo daarood kala garan maayo allahumma hawiye kala garan maayo gobol garan maayo wuxuu isku khaldayaa allahumma sal biciide iyo sacad yoonis buu isku khaldayaa markaasuu leeyahay biciido habar yoonisa annaga hanoo yima bal
reeraha iyo gobolada iyo degmooyinka iyo sida loo kala bal aan u dhigno waa ninka halkaa la soo tagan biciidoo sacad habar yoonisa war maaha sal calee war maaha aawadayo ayaa loo soo daayay oo la yidhi kaalay ma kuwa soo daynaya laftooda ayaa muhiimi ma aha aniga jananooga muhiimi ma aha laakiin waxaa ii muhiima muuse shaani fikirkiisa inaan la dagaalamo sidaad ula dagaalami kartaa muuse isagoo shakhsi ah oo askariya oo baylod ah oo air traffic sida diyaaradaha loo hago muu ahayn duuliye wuxuu ahaa sida diyaaradaha loo hagay isagoo bartay ayuu maxamed siyaad barre mucaarad ku noqday aad ii fahma soomaaliyeed ayuu mucaarad ku noqday maxamed siyaad barre dabeedna wuu goostay inteebay ku qaadatay fikirkii uu qabay inuu gaadhsiiyo ilaa xad inuu imika yidhaahdo madaxweyne reereed baanay qofka u haysta inaan iska hadlayoon daalayo aniga iyo khayrkay aanu daalayno war kama daalayno waayo wixii waa halgan waayo wixii waa halganka odaygaa siilaanya imika daalay maxaa siyaad barre mucaarad ku noqday inteedoo sannadood bay ku qaadatay inuu madaxweyne ka noqdo jeegaanland in badan bay ku qaadatay nelson mandela 25 sannadood buu xidhnaa haye aakhirkii muxuu noqday muxuu laakiin uga tegay south africa marka waxba yaan lagu warwareegin qof baa iska xiiqayo qof baa daalayo war ma daalayo haddii aan daalo oo aan ka tago arrinkan waxa weeye jiil idhaxl ayaa jiro halkaa ka sii qaadaya jiil idhaxlaya ayaa jiro halkaa ka sii bilaabaya laakiin waxaan idiin sheegayaa meel kasta ha martee intaa in la eg soomaali wax ma yeeli kara daciif uskaga ahi oo aan waxba ahayn wallahi baanu soomaali intaa yeelin ummadda soomaaliyeed meelaha laga dhibaateeyo ayaanu markasta sheegaynaa annaga waxba nooguma jirto allahumma sal annaga waxba nooguma jirto qolo laga hadlo waxba noogu jirto laakiin qolada waxaanu sheegaynaa waa marka ay ummadda soomaaliyeed taabtaan allahumma salli calaa maxamed waxaanu sheegaynaa siyaasigu markuu ummad sambalowshe ma lacag baan ku lahaa sambalowshe xali baan ka hadlayay laakiin sambalowshe waa khaa'inul wadan isagaa qalbi dhagax dhiibay bilow ilaa dhammaad gaalkacyo laga soo qaado ilaa xamar ilaa markii baydhabo diyaaradda loo saaray jawanka madaxa loo geliyey isagaa dhiibay okay isagoo sidaa u dhiibay baa xilkiina mas'uuliyadda laga qaaday dabeetana wuxuu u baratamay baarlamaan dabeetna baarlamaankiina waa laga helay dabeetana calaacal buu keenay calaacalku keenan mid ummadda soomaaliyeed ka soconaya maaha hadalka wuxuu ka dhuudhuubay waxa ku leeyahay go'aan dowladeed bay ahayd go'aan dowladeed ma ahayna go'aan khaayinimo oo aad adigu qaadatay oo nabad sugidda ah oo diyaaradda ka shaqaysay oo aad fududaysay ood hoos dhigtay khayre iyo farmaajo ood ka saxeexday oo aad ku bahdilaysay ood Itoobiya ugu shaqaynaysay sambalowshow kaad Itoobiya ugu shaqaynaysay buu ahaa markaasaan sidaa dowladda iyo shacabka Soomaaliyeedba way gilgisheen way gilgisheen dowladda iyo shacabka Soomaaliyeedba markaasaa qalbi dhagax farmaajo dhiibay khayr ciddaad u shaqaynaysayna xabashi bay ahayd ilaa imikana aad u shaqayso imikana waxaad hoos tagtay ina Cabdirashiid oo ku yiri jawhar lacag iska soo sharax Cabdisaaq Gumeysidiid walaalaad baan ku salaamay dadka aan ugu jecelay weeye Cabdisaaq Gumeysidiid ee social media ku jira
markaan idin lahaa nacaska social media waa iyo doqonku waa Naasir Cadceed fariidka social media huna waa Cabdirasaaq Gumaysidiid saful awwalka ninka ku jira Cabdirasaaq Gumaysidiid baa la yiraahdaa qoraalkiisa mar walba sheegaray soo dhaweeye marka taariikh baa saa isu qoraysa waxba saa u wareegaya ninku meeshuu galaba ha gale xagu igaga baxsanaya aniga xagu igaga baxsanaya ninka Soomaaliga magaca doonto soo qaado siyaasiga doonto iska dhig Allahumma salli ala Muhammad qabiilka doonto sheego waan kula socdaa hadana waxaan halkan rabaa inaan uga mahad celiyo aqoon-yahan aadan jaamac kaahin khayr Allah siiya Allah xafide oo aqoon-yahan oo mar walba aqliga iyo cilmiga nala daba taagan aqliga iyo cilmiga nala daba taagano sida wax noogu sheegayo nasaxaya waxaan doonayaa halkan inaan uga mahad celiyo dadka reer waqooyiga ah ee midnimada jecel ee Hargeysa ku nool ee Burco ku nool ee sidii maka diinta looga fidin jiray dacwo sirriya wada faqa kuwaasina aad bay u mahadsan yihiin waxaan rabaa oo kale inaan halkan ummadda Soomaaliyeed uga sheego wax yar oo aad muhiim ah waxa weeye beenta yaan la faafinin nin walowba wax ka soo hadal laakiin ogow dhuumashada qaartuu dhabarka muuqda waa dhib yahadimay hadda saasaan kuula soconaa wallahi waxaad sheegto waanu kaa daba sheegaynaa xalaale waxaad sheegto waanu kaa daba sheegaynaa marka waxyaalo imika waxa soo baxay hab casriya beenta wax lagaga dhaadhicinaya dabeetana isla markiiba wax lagu nabcaysiinaya cid ama meel ama gobol ama siyaasi ama ayaa lagu nabcaysiinaya